بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين maanta taariikhdu tahay 19 bishii February 2026 waxaynu halkan u sheegaynaa waxqabadkii wasaaradda sanadkiina soo dhaafay runtii sanadka wasaaradda qorshayaashii ay lahayd sanadka wax badan baa u qabsoomay waxaan oran karnaa boqolkiiba 80 waa qabsoomeen waxaan rajeynaynaa insha Allah qorshayaasha shanta sano ee wasaaraddu ay jireysay inay qabsoomi doonaan haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah waxaan leenahay sanadka wasaaradda waxa uu qabsoomay xagga tamarta markaynu eegayno wasaaraddu saddex waaxood oo waaweyn ay maamushaa waaxda korontada waaxda macdanta iyo waaxda shidaalka haddaynu eegno xagga tamarta waxa uu qabsoomay in qiimaha korontada hoos loo dhigay boqolkiiba 19 dhammaan waddanka oo dhan taasoo ahayd ballanqaadyadii madaxweynuhu sameeyay xilligii lagu jiray ololaha doorashada wasaaraddu iyo shirkadaha iskaashanayaan ay ka dhabeeyeen wana uga mahad celinayna shirkadaha aqbalay fuliyayna taa waxaa sii raacda magaalada Berbera oo ka duwan oo ah magaalo xeebeed ahna magaalada ganacsiga ee Somaliland in iyada laga dhigay 20 senti halka magaalooyinka kale ee waddanka laga dhigay maxay ahayd 59 senti halka markii hore ka ahayd 73 senti oo dollar halkii kilowatt waxa isticmaalka tabarta la cusboonaysiiyo la kordhiyay boqolkiiba 24 taasoo ku jirtay manifestada xisbiga oo ku ololeeyay waxa koronto galin ballaaran loo sameeyay 46 xarumood oo hadda uu socdo fulintii ay socoto oo xarumo caafimaad ah oo la dhigayo solar ay ugu shaqeynayaan marka talaagadihii iyo dhammaan electric ugu shaqeynaya 46 xarumood oo gobolada waddanka oo dhan kamid ah waxa sidoo kale iyadana solar la geliyay iyo baytariyadii 750 xarumood oo xarumada waxbarashada ah iskuulada ah taasoo u qaybsan gobolada waddanka oo dhan waxa kaabisi wax ka bedel lagu sameeyay xeerka korontada jamhuuriyadda Somaliland oo ay baarlamaanku ansixiyeen waxa la dhameystiray istiraatiijiyadda 10 sano ee korontada iyo tamarta taasoo dhiirigelinaysa tamarta cusboonaata taasoo markaa jihaynaysa ama jihada u jaaxaysa in la dhiirigeliyo tamarta cusboonaata soo jiidanaysa maalgashadayaal cusub waxa sidoo kale la dhameystiray siyaasadda 5 sano ee tamarta waxaa la soo gabagabeeyay buugga heerarka koronto galinta dhismayaasha waddankan hore u jiri jirin waxa wasaaraddu ay dhameystirtay siyaasadda koronto galinta magaalooyinka yaryar ama waxa la yiraahdo mini grid policy oo saamaxaysa waxa la yiraahdo rural electrification ama in magaalooyinka yaryar koronto la geliyo waxa wasaaradda u qorsheysan sidan hore u sheegnay ay u qorsheysay inay daraasad ka sameysay tuulooyinkeena 6 tuulo kamid ah qaarna la dhameystiray fulintoodii qaarna daraasadii la dhameystiro fulintoodii imika gacanta lagu hayo tusaale garadaga oo kale shirkadda korontada ee garadaga oo mahad celinaynaa waxaanu kala shaqeynay inay la soo degaan qalabka tamarta la cusboonaysiiyo kaasoo u sahlay inay qiimaha ka dhigaan 30 senti
oo ah halkaynu u socono sanadkan dhammaadkiisa in aynu gaarsiino wadanka intiisa badan iyagana uga mahad celinaynaa shirkadaha kale ku dhiirada iyagana waa kala shaqeynaynaa rural electrification ko dhan dhamaantiina waxaanu rabnaa inaan wada gaadhno taasoo hadda iyaduna daraasadii ay soo dhamaystirantay magaalooyinka yaryar 6 kamid ah oo insha Allah fulinteedii waxaan rajaynaynaa in la bilaabo waxaa la dardargeliyay mashaariicda World Bank ku bixiyeen oo ay kamid tahay magaalada Berbera oo 20 milyan mashruuceegi socdo waxa gacanta lagu hayaa isagana dhamaystirka mashruuca magaalada Boorama oo isaguna dhawaan insha Allah bilaabmi doona oo soo dhamaatay markaasi qiimeyntiisii waxaanu anagoo xagga korontada ka eegayna ama tamarta la cusboonaysiiyo aan wasaaradaha kala duwan sida wasaaradda biyaha beeraha xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga kala shaqeynaynay mashaariic yaryar oo lagu dhiirigelinayo dadka beeralayda oo loo sameeyay agro solar system kuwa biyaha oo loo sameeyay maxay ahaydey solar system ceelasha dhaadheer iyo wasaaradda xanaanada xoolaha oo aan ka caawinaynay in meelaha beeraha yaryar qaarkood solar loo geliyo dadka caanaha ka shaqeeya ama talaagado wasaaradda kalluumaysiga oo kala shaqeynay cold chain iyo inay solar loo saaro meelaha kalluumaysiga oo inaga la shaqeynayno uga mahad celinayna mashruucaas oo ay Europe ay ku bixiyeen ayna shaqada gacanta ku hayso hay'adda ADRA oo iyadana magaalooyinka yaryar loo qaybiyay xagga macdanta markaynu eegno waxaa la dhammaystiray istiraatiijiyadda 5 sano oo wasaaraddu ku shaqeynaysay macdanta waxaa la dhammaystiray wax ka beddelka iyo kaabis lagu sameeyay siyaasadda macdanta taasoo xoojinaysa in si macquul ah loo isticmaalo macdanteena maalgashadayaalna aynu wadanka ugu soo jiidno waxa la dhammaystiray iyadana oo la fulinteedii ay la fuliyay dhammaan xeer nidaameedyadii ka farcamayay siyaasadda iyo xeerka macdanta oo u saamaxaya xaq ilaalinaya muwaadinka xaq maalgashadahana ilaalinaya waxa dibaahoon sharciyeed lagu sameeyay oo adag ruqsadaha ay wasaaraddu siiso shirkadaha liisanka macdanta doonaya oo mar walba la eegayo awoodooda dhaqaale iyo awoodooda farsamo tan waa la dhammaystiray iyadoo la raaciyay oo loo fudeydiyay habraacyadii iyo nidaamkii shaqo ee ay ku dhammaystirmayay ama workflow-ga wax la dhaahdo oo wasaaraddu dhammaystirtay oo halka uu socdo ruqsaddu iyo checking-kiisa iyo halka uu ku dhamaanayo la garanayo waxaan wasaaraddu markii u horeysay heshiis ay la gashay shirkad Canadian ah oo dhammaan wadamada Afrika intooda badan u sameysay nidaamka loo yaqaano mining cadastral system kaasoo saamaxaya in qofka maalgashadaha ama shirkaddu ay si online ah ku soo codsan karto ruqsadeeda wadanka ay joogaan ama wadanka ha joogaan ama meel kale ha joogaan waxa uu sahlayaa si fudud in loo ogaado ama loo xadido xuduudda juqraafiyadeed ay leedahay block systemku waxa kale uu fudaydinayaa dakhliga ururinta ayuu si fudud loo heli karayaa ama shirkaddu ay bixinaysaa ama loogu dabagalayaa waxa si fudud loo monitor gareynayaa ama loo joogteynayaa waxqabadka shirkadda ruqsadda la siiyay waxa uu yareynayaa khilaafaadka blogyada ka jira waxa uu kaydinayaa xogta macdanta dalka oo dhan buu kaydinayaa taasina wuu socdaa wasaaraddu waxay sanadkaa samaysay sahano kala duwan oo meelaha ay ku tuumayso macdanta qaaliga ah ay wasaaraddu ku samaysay sahamo gobolada ah
sida gobolka Awdal, Saaxil iyo Sanaag. waxa wasaaraddu markii u horeysay inta wadanku jiro ay qabatay carwadii macdanta taasoo ay ka soo qayb galeen 34 wadan iyo shirkado isugu jira wufuud iskugu jira waa si virtual ah ama fogaan araga uga soo qayb galay wasiiro wadamo kala duwan jooga. waxa markii ugu horeysay la soo bandhigay macdanteena wadankeena ku duugan meelaha ay taalo tayadeeda iyo daraasadihii laga sameeyo dhan baa lagu soo bandhigay adduunyadan loo gudbiyay si ay u maal gashadaan. xagga shidaalka markaynu eegno waxa la dardar galiyay dib u eegisna lagu sameeyay heshiisyada shirkadaha shidaalka lagu jiro iyadoo la isla qaatay in ceelka toosan la qodo 3 bilood oo horeeyay dhexdooda sanadka 2027 iyadoo inta ka horeysana sanadkana la sii qaban doono shaqooyinkii ka horeeyay in la gaaro qodista sida shirkadihii qodayay riigagii shirkadihii sameynayay qiimeynta amniga iyo dhammaan wixii kale la xiriirayba. waxa wasaaraddu shaqooyin badan la wadaa shirkado international ah oo danaynaya shidaalkeena waxayna marayaan heer in la gaaro heshiisyo haddii Ilaahay raado. inta marka laga yimaado waxyaabo badan oo wasaaradda u qorshaysnaa waxay hadda loo riixay sanadkan inaynu qabanno kuwaas oo wax ka taraya macdanteena iyo sidaynu u soo saari lahayn shidaalkeena. waxa wasaaraddu qorsheynaysaa sanadkan insha Allah horaantiisa inaynu marka hore furno macadka culumta macdanta iyo shidaalka kaasoo kabcinaya xirfadda aqooneed ee aynu u leenahay iyo inaynu inagu si xirfadeena uga faa'iideysano inaynu ku sameeyno markaasi maxay hayday daraasad ama qiimeyn blogyada shidaalka iyo dhammaan macdanta kala duwan aynu leenahay wuxuu kubcinaya marka xirfadda ay u leeyihiin shaqaalaheenu ama dadkeenu. waxay wasaaraddu qorsheynaysaa inay sameyso James Center wax la raado oo kaasoo markaasi isaguna waxa weey waa macad lagu baranayo farsamada gacanta yar yar oo macdanteena dadku mashiinada yar inta isticmaalaan ay sameeyaan kuulaha silisyada fargalada iyo dhammaan wixii la isku qurxinayay oo inay ka sameeyaan markaasi James Stones kama macdanaha kala duwan ee qurxinta. waxaanu doonaynaa inaynu sameeyno oo insha Allah aanu hadda gacanta ku haynaa shirkadii macdanta wadanku lahaana in la sameeyo. intaas waa inta soo horeysay sanadkii hore naga baaqday anagoo fulinayna ballanqaadkii madaxweynaha ahaa in maalgashadayaasha kuwa maxalliga iyo kuwa caalamiga ah la siiyo dhul. waxaanu dhiirigelinaynaa maalgashadayaasha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ee doonaya inay maalgashadaan tamarta iyo macdanta taasoo la siin doono dhul. runtii dhulkaas wuxuu noqon karaa tamarta markaynu ka hadlayno oo kale in kuwa dabdhalinta sameynaya ay dhul helaan generation oo kale taasoo ay maalgashan karaan shirkaduhu xeerkeenuna u saamaxayo. maalgashadayaasha markaa dhulka waana kala shaqeynaynaa waana dhiirigelinaynaa inay helaan wasaaradda ay khusuusan kala shaqeynaa hadii la raado. aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.